from April until June. وحاجه وبلاوني assessment كان waxaa lagu tijaabin doonaa bisha afraad ilaa bisha sagaalaad sanadka. So for these 3 months, if you are a bronze lion, silver lion, or gold lion, you are in this challenge. هذا هذا تاي بronze كسر هذا تاي challenge ama tartanka uu ku yaala. If you are not a bronze lion, هذا لين maanta bronze lion. you need to make sure you be bronze lion from now until June. هذا لين bronze lion waxaa haysataa fursad bisha afraad maanta bisha ku jirno ilaa iyo Then by July, you will be able to go into this challenge. So bisha toddobaad markii la gaaro waxay noqonaysaa inaad qayb ka noqoto tartanka. When do you need to be bronze lion? meeqaadka bronze lion inay noqoto? When do you need to be bronze lion? July. ugu dambeyn ilaa bisha toddobaad inaad bronze kusoo gashaa dadka tartanka inay ka faa'iideyso. Can you be bronze lion by July? ma noqon kartaa ilaa xilligaas bronze lion? Can you be bronze lion by July? Next, you will need to have a certain sales target. waxaana lagu tartami doonaa iib khaas ah isku diri doonaa. You must achieve 20% growth of your quarterly performance. boqolkiiba 20 inaa maxalla ii sheegay afarta bilood uu gaaro waa iibkaaga waxaan isku diraayo. You must this department contribution cap at 40% at the total performance. total iibkaaga dhacaya inuu gaaro boqolkiiba 40. So how much is the money? How many PV you need to earn in 1 quarter? boqolkiiba 20 ama boqolkiiba 40 waxaa laga wada iibka